munaasabadan oo ujeedkeedu ah furitaanka sanad dugsiyeedka 2014 iyo 2015 ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dugsiga hoose iyo dhexe ee Anwar Muslim United School. mu'asasada Anwar Muslim United School oo ah meel wax lagu baro ardayda agoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar ayaa waxaa sanadkan jira 70 arday oo ka gudbaysa fasalada dugsiyada hoose waxaana ay u gudbi doonaan fasalada dugsiyada dhexe. holka ay ka dhaceysay munaasabada furitaanka sanad dugsiyeedka 2014 iyo 2015 ayaa waxa halkaasi ardayda iskuulkaasi dhigatay ku soo bandhigeen mujaajilo ka turjumaysa qiimaha ay waxbarashadu u leedahay dhalaanka Soomaaliyeed iyadoo sidoo kale riwaayadani lagu muujinayay qaabka ay mu'asasada Anwar Muslim United School ay u heelan tahay wanaajinta mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed. Aku gimana ya? Aku nggak turun, macam je, bedo. Ini kalau ada kawan, ini sudah masyarakat kami ini kan, ayo kan kawan, ini ada batasan. labadan bir walaa bilaadku xalay sheegay iskuulkiisa meelaha oo jaamacad wax lagu baranayo inaad gaartaan kaysto waa agoonta miskiinta. Waalaikum salaam. halkaan ku suganahay iskuul maahan. Naam. Naam hala. Hala ku fudud macnaa ku geey. Inta waa inaad bartid. Alu bara. Alu bara ma naqmad barane. أفر ما دعم أفر ما دعم بلنت يجي أفر ما تسكفع معه تسكفع على مكان دوما أبي تسكفع جوده. دكتور حسن حسين رابلي oo ah maamulaha Anwar Muslim United School iyo Ciisadin Maxamed Cismaan oo labadoodu ka hadlay holkay munaasabadu ka socotay ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha kala duwan ee Soomaaliyeed ee ku nool wadamada caalamka inay ka qayb qaataan wax u qabadka carruurta Soomaaliyeed. marka waxaan codsanaynaa qoladii kale waxaan lagu taakulayn kartaa ardaydaas wax siin kartana inay soo siiyaan caalamka oo meel kasta ay joogaan. anagana dadaal waxaan ballan qaadaynaa inaan wax barno ardaydaas oo ku dadaalno sidii ilaahay raalli uga yahay in aan wax u barno diinta islaamkana aan barno ugu horeyso. juhdi badan isleen waxaan halkan uga mahadcelinayaa macallimiinta madrasadan maamulkeeda Xasan iyo Seraar iyo group macallimiinta Albaashi dhamaan oo dadaal badan muujiyay oo ku dadaalay inuu madrasadan cageeda ku istaagto. hadal badan aan ma buuxay hadda waxaan ardayda dhamaanteen waxaan leenahay jasaakumullahu khayr. waan ka soo qayb galay sanadka cusub furitaanka marka waxaan hadda ii muuqato isbedel weyn ardayda hadda aan arkayno way ka yareed furitaankii oo aad ayay u badteen ardada marka waxaa jirto baahiyo badan oo dhinacyo badan ah marka dhinaca oo aqabka ayay aad uga baahan yihiin marka waxaan weydiin lahaa ummadii furitaankeeda ansixisay dugsigan inay taageeraan mar labaad oo ay ka taageeraan dhinac walbo maxaa yeelay ardadani waa arday u baahan inay yani la taageero waa arday yani aad iyo aad ugu baahan inay bartaan noloshooda ayaa waxay ku xiran tahay yani inay mustaqbalka ku noolaan nolol fiican inay yani wax bartaan qofka maaragtay hal mar oo aad wax siisid ama laba mar oo wax siisid waxaa laga yaabaa waqti yar inay baahidiisa ay kaafiso laakiin haddii aad wax bartid waxaa laga yaabaa markuu weynaado inuu asigii iyo ummadda kale inuu wax taro. Muslim United School ayaa la aasaasay sanadii 2012 waxaana hadda dhigta arday badan oo qaarkood ka soo jeeda qoysaska danta yar kuwaas oo ehladoodu aan awoodin in carruurtooda ay geeyaan iskuulaadka ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu barto lacago. School.
aways maxamuud julacow royal tv muqdisho